saddex waxyaabood ayaa loo haystaa nin geed baa jira nin goob baa jira nin gacan baa jira saddexdaa ayaa loo haystaa mararka qaarkood taariikhda Soomaalida qoysku iyo bulshadu iyo beesha meesha wada degani way u xisaabsanayd sida feeraha qofka ama xubnaha neefka ay u kala qaybsan yihiin ayay ugu kala qaybsanayd dadkii hore ee odayaasha dhaqanka ahaa ama beeldaajiyaasha ahaa ama xeer beegtida ahaa sidaasay ugu kala qaybsanaayeen bulshada waxtarka xaqiisa oo waxa la oran jiray dadkaaga nimba meel bad u haysataayo waa wada muhiim mid aad quudho ama aad tuuri kartood ka maarmi karta ma jirto marka sidaa darteed dadkaaga oo dhan waa wada jeceshahay way ku qiimaysan yihiin saddexda unbaa gaar looga soo soocay mooyee dadka intiisa kale oo dhani waxa weeyaan uu hawl buu u qaybsanaa oo waxa weeyaan qofba meel baa lagu ogaa aan looga maarmi karin oo haddii meeshii dabac laga dareemo la oran jiray hebel ama hebla mee maxay ku dhacday inay sidaa noqoto marka saddex baa loo haystaa baa la yiri saddex baa laga soo qaaday waana muhiimad gaar ay leeyihiin baa loo soo qaaday waxa la doonayaa waa saddex hogaamin xaggeeda ah ama nolosha horumarka xaqiisa ku lug leeyihiin saddexdan inkastoo haani guntay ka tolantaaye dad badan oo kale oo haweenkii ay ku jiraan iyo xaaskii kale uu ninba hawl hayo caruurtii iyo wixii ay ku jiraan waxa la yiraahdaa dadkaaga ama ragaaga nin geed baa loo haystaa geedka waxa weeyaan marka gar iyo xaajo ay timaado oo laba arintu ay noqoto laba beelood mid u dhaxaysa oo arintu ay noqoto jilib caro oo ay noqoto haday doonto gar cadaawe ama ay noqoto gar muslax kay doontaaba ha noqotee nin baa geedka loo haystaayood leedahay hebelow arintaas bari jirta isaga yaqaana oo hordhig u ah reerka xagga geedka isaga u hadlaya isaga af ayaan u ah isaga xeer aqoon u ah isaga og beelaha kale ee beeshu ay la degan tahay xeerarkii ka dhaxeeyay midba meeshuu u joogay isaga og oo oranaya war inagu bari dhaweyd waxaasaad naga samayseenoo sidaasan idin la xeernay tan tii kama duwane anaguna sidaa noola xeera ama tii hore aan marino haday ugub tahayna waxaynu isku ognahay oo hadhow cidna aanay ka gilgilan doonin aynu isla meel dhigno isaga sidaa u yiraahdo nin geed baa loo haystaayo wixii kale oo garee dadkii kale wax kala dhaxeeyeen ayuu horjooga kuugu yahay oo iyagana way ku qancayaan markay hebel arkaan inay wax la og yihiin oo wax ay isla og yihiin way oo waxna fahmaya waxna u daynaya waxna ay u dayn karaan midka geed baa loo haystaa hadii la waayo beesha ama bulshada waxay noqonaysaa mid aan geedkii cidna loo haysano isagii marka galab ay noqoto xaajiniman ka ogeyn xiribuhu ka ridaaye oo marka qof kale oo wixii aan ogeyn uu indhaha ka rido ayay noqonaysaa mid labaad waxa weeyaan ninna goob baa loo haystaa goobtu waa goob dagaal waa goob colaadeed markay geesinimo joogto oo goobta goob colaadeed ama goob dagaal ay tahay nin waliba looma baahna maalinta ragga qaarkii baa loo baahan yahay oo hebel baa loo baahan yahay marka iyadana saas oo kale hebeladii waa in la helaa oo marka la yiraahdo hebel ba ayaa inoo diyaaro marka tolkii iyo beeshii iyo qowmiyadii ummadii ay ku niyad wanaagsanaadaan oo ay yiraahdaan hebelaba haday halka joogaan الله إلهي وحي نصيبك يا علفك وحي نقصي مويه ونسيجيه مويه تدال وين وحوين كوهلينا إيو وحاويان جيسي نما إيا ديراني وحوين كوهلينا واننقو مدى كلاسة دحادنا وحاويان وحاجرو ننقع عن باجر الله هستو هذا دباتة تماده باهي أبار هذا مرتي علوس تماده هذا أرين كلو قاران أي تماده وحكره هذا وحوم بحن أباهن هذا تماده رجع قارب الله يستايو ننقع عن بالله يستايو ونن ديقسية نن كان الله مهورو والله بحسدا أو وحو عيب أسترابيش يبلشة مركا أولندولي هاي أيو عيب أسترايو dad badan oo miskiin oo togba taxi soo rognaayay aan waxba hayn ayuu furtaayo yiraahdo hebel baa bixiyay ama hebel ka sii qaada ayaa la yiraahdaa marka ninkaana waxa loo haystaa waa nin gacan ayaa loo haystaayo deeqsinimo marka bulshadaadu waa inay sida kugu kala qiimaysan tahay oo midka kale meesha uu ku haboon yahay ay tahay hadda maanta haday ku eegno oo aad bulshadii hore reer miyiga ahayd ama beeraleyda ahayd ama xoololey ahayd baalki kale deegaanka beeraleyda ahayd ama badaba ahayd haddaad waxa weeyaan aad ka soo qaado aad ka soo talawdo
oo dhaqankaba keenta dawladnimada iyo waxaan hadda maanta aynu ku jirno waxa weeyaan nin geed baa loo baahan yahay nin adduunyada la hadli kara oo wax ka soo qaadi kara oo ka soo goyn kara waa loo baahan yahay nin goob baa loo baahan yahay marka adduunyada kale baday kaaga baqaan oo magac loo geesiyaalana waa loo baahan yahay nin gacanna waa loo baahan yahay marka ay iskaashtooyinka iyo xeerarka iyo waxbixinta iyo ololayaasha ay jiraanna dad deeqsiyaal oo ganacsataa oo wax huro ummadda horumarkeeda wax ku hurana waa loo baahan yahay marka dadkaaga waa inaad sidaa u kala ogaataayo dadkaasoo idinkuna sidaa lidiin ogyahay waa in markeeda iyo maalinteeda kaalinta idinkuna ka soo baxdaanoo ummadda waxay idiin haysatay ka soo dhalashaan dhagaystayaal barnaamijkeennii murtimaale aad kala socoteen idaacadda kulmiye maanta